سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسيين وحو كبلاميا آيات 43 كنمد سورة النساء، وانا درسيني كوبية تبناد تفسير سورة النساء. آيادا نهو الرئيس درسينا وحو ربي سبحانه وتعالى كتل ماميا سببتي أي كسو دكتي إن آن صلاة لأجمر اللور دوان قفكو مركو يهيبد آن عقلقي سبوح سخرانسا وريرسا تاسوء مرحلة دي صدحاد heerarkii ay soo mareen taxriimka la xaaraam yeelay khamrada. waxaa kaloo aayaddu tilmaami sababtii loo sharciyeeyey tayamumka. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu war dadka mu'miniinta iimaanka lahow laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaada wa antum idinkoo sukaaraa sikhraansan, idinkiioo miyirla oo khamro cabay amaba maandooriye isticmaalay ha u dhowaanina salaada xataa taclamuu ilaa intaad ogaanaysaan eed fahmaysaan maa taquuluun waxaad ku hadlaysaan ilaa intaad fahmaysaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu halkan tilmaamayaa salaadii inaan loo dhowaanayn qofkii sikhraansanaa walaa junuban idinkiioo jinaaba leh ha u dhowaanina amaakintii cibaadada ilaa caabiri sabiil mid jidka ka gudbaya oo ka tallaabaya mooye xataa takhtasiluu ilaa intaad maydhanaysaan. wa in kuntum haddaad tihiin mu'miniin mardaa kuwa xanuunsanayo buka aw amaba calaa safarin socoto iyo jid kuwa ku jira aw amaba jaa'a uu yimaado axadun mid minkum idinka idinka midi min alqaa'idi halkii uu xaajadiisa ku soo gudanayay uu ka yimaado aw amaba laamastum aad u galmootaanood u tagtaan annisaa'a haween oo falam tajiduu aydaan helin maa'an biyo fatayamamuu u qasta saciidan carro iyo ciid tayiban fiican oo famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejigiinna ku masaxa iyo wa aydiikum gacmihiinna ina allaha allah kaana waxau ahaaday cafuwan alla dhaafid badan wixii dhacdhac iyo gefe idinka dhaca ghafuuran alla dembi dhaaf badan ayuu ahaaday rabbi subxaanahu wa tacaala. wuxuu waxaasoo dhan idinku fudaydiyey, wuxuu arrimihii cuslaa idinka dhaafay waa inaydaan ku dhicin xaraj iyo dhib buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala. aayadda 3 qaybood
أي آيات قيبسنتا قيبت كواد إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامية إن آني بنانين إن صلاة دي لتكدو إيدي وقفك عقل جيسي آن بوحين أيضا هرين أصوت المامي أيضا وحي أهيد آيدي صدحاد إيه خمرضة كورنتا هيركي كواد إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي خمرضو إن أي بني آدمي قعمه ذا كسميستان إن كسميستان بني آدمي قاسي مراها قيمي قبضان عنب له تمر له قيبتا وحو إلهي إن قرنسيي إن شيء لغو استخرامو إلهي ديقدان وإن سيي لغا سميو مرحلة دي اللباد يا خمرضا إلهي سبحانه وتعالى وحو إنوت المامي إن خمرضا يوحن عقلك بدليو dhibtiisu ay ka badan tahay waxa la moodayay inuu dheef iyo waxtar leeyahay aayadii saddexaadna waa tan aayadani waxa u soo nusuulaha intii aan khamrada la xaraam yeelin ayaa Ali ibn Abi Talib wuxuu radiyallahu anhu waxa noo sameeyay buuri casuumad Abdurrahman ibn Auf markaasuu noo yeeray khamrigii baan cabnay markaas khamradii نمدح مرتي صلاة دي باقاده بولي مركز علي وحلي حديث إمام الترمذي أنا قادتك اللي هرشوشي توكي بالي ذاتك صلاة دي مركز توكيني الفاتحة دي أخري سورة دي لباد باوحان قاطي قل يا أيها الكافرون ده نبي الله قالوا لا أعبد ما تعبدون وأن بدل بولي وحان أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون وحد عابد إيسان بان عابدي إذن كنا وحد عابد إيسان بان عابدي ونسكت درسنا مركز إلهي سبحانه وتعالى عسودة يا أيها الذين آمنوا وردتك مؤمنين إيمانك له لا تقربوها دواننا الصلاة صلاة وأنتم إذنك والسكارى سخراسا حتى تعلموا إلى أنت أغانيسان فهميسان ما تقولون وحاسكو هاد ليسان صلاة ديها أقمرنا إلهي سبحانه وتعالى سورة المائدة نكو أركي وحوسود شيء مرحلة دي أفرادا بآيات دي قدام بيسي تاسو إلهي سبحانه وتعالى تحريم قوان وكو حرام يلي خمرضا ربنا أولي صلاة إيا صلاة لإتونا خمرضا وحرام إيه أقمرنا إلهي مركو قيبتها كنت المامي آيادا قيبت اللباد ربوح لي ولا جنوبا إذنك يوچناب لنا صلاة هؤدواننا ماله صلاة هؤدواننا إلا عابر السبيل متشدك كتلاب يموي وحتى ليسي حلق رسولك صلوات الله والسلام عليه نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم إيا صحابة قار كم ذبا مساجدك قريهودو كنا بنا أي الباب كفرتين حقي مساجدك طاقدنا ويكفرتين رسولك صلوات الله والسلام عليه واكي وضحري مركي ضمبه إلا تي أبو بكر موي حدبا رقا برد وحيكو قسبيسي إني هدي أي بيقولي كوايان أو أي تنابليهين مساجدك لما أقرأ إنو قفكي تحفر يستجنبكي تنابذ لها صلاة نداب وركيدا marka meeshii cibaadada inuu fariisto hadaan loo ogolayn waxa loo ogoliyay ninkii dariiq ka dhiganaya ka gudbaya ka talaabaya inta baa loo ogoliyay wala junuban idinkii oo jinaabale salaadii ha tukanina ahaw dhawaan idinkii oo daahir ahayn nadiif ahayn rabbi wuxuu illa aabiri sabiil idinkoo aabiri kuwa sabiilin jidka iyo dawga kuwa ka gudbaya mooyeen hatta taqtasilu إلى أنتاد ميرانيسان حق مرينا كقف كي جنابة لها مساجد كي إنو فريستو إيه إنو صلاة اسكدايو من الله ما أقولا إلهي سبحانه وتعالى وعليه وإن كنتم هداتهين مرضى قوابك أيضا قيبتا وحيت المامي أيضا قيبتا وحيت المامي وقيبتي صدح هذا نكي هدي أو جنابة بيشو
amaba socoto dheer uu galo dhul cidlo oo bilaa biyo amarayo muxuu yeeli waxa u bannaan inuu gebagabaysigu waa maxay beddelkii biyaha uu ku weysaysanayey ayaa wuxuu u beddeli doonaa ciidda inuu markaasi ku gebagabaysto siduu ugu gebagabaysanayana laba xaalaba labaduba way bannaan tahay inuu intuu ninkii qaado aw labadiisa baabaco ku dhufto markaasi carrada amba ciid uu ku dhufto deetana intuu iska afuufo wejiga uu saaro haddana mar labaad uu ku dhufto gacantiisa bidix uu ku masaxo gacanta midig ilaa xusulka gacanta markaasi midigna ta bidixda uu ku masaxa ilaa xusulka isagoo kayfiyadiina fiqiga looga noqon amaba intuu mar qura ku dhufto inuu wejigana ku dhufto labada baabace horena faraha intaa horena inuu ku dhufto cala ayati xaal tafaasiisha fiqiga loogu noqon ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyihi wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa buka waad xanuunsanaysaa xanuun baad qabtaa haddii aad biyahan marisid biyuhu markaasi ay boogta sii beerinayaan nabarku uu sii koraayo xanuunka uu kugu badan ilaah wuxuu leeyahay haddii aad bugtaan oydaan biyaha ku weysaysan karayn aw amaba calaa safarin socoto haddaad tihiin oo aad bilaa biyo noqoteen waxa socoto looga cabbiray adigiyoo magaalada iska jooga oon socoto ahayn waad gebagabaysan kartaa haddii biyo la waayo laakiin waxaa socotada looga cabbiray amba safarka inta faraha badan qofku markuu socoteeyuu gurigiisii ka baxo inuu biyo la'aan ku dhaco way u dhowdahay aw calaa safarin amba socoto aad tihiin aw amaba jaa'a uu yimaado axadun mid minkum idinka idinka midi min alqaa'idi halkii uu ku soo gudanaya xaajadiisa uu ka yimaado kaadib dabadeed saxaro dabadeed aw amaba laamastum aad u galmootaan annisaa'a haween ood jinaabo yeelataan oo falam tajiduu aydaan helin maa an biyo fatayamamuu waxaad u qasdidaan saciidan carra iyo ciid dayiban fiican taasi ku gebagabaysta markaa gebagabaysigaasi wuxuu u qumi halkii maydhitaankana wuu geli halkii weysadana wuu geli jinaabaad yeelatay biyaad weyday waad gebagabaysan weysadiunbaa kaa jabtay salaadiibay wakhtigeedii gaadhay biyaad weyday waad gebagabaysan rabbi wuxuu leeyahy famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyadiinna iyo wa aydiikum gacmihiinna ku masaxa buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala ciidda wejiga iyo gacmaha uun ayaa lagu masaxay ina allaha allah kaana waxa waaday cafuwan ala dhaafid badan wixii idin cuslaya ee idin dhibaba ilaahay wuu idinka dhaafi waxa waaday qafuuran axad dembi dhaafis badan qofkii gefee u toobad keena ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadiisu aqbali caaisha waxay tidhi safaradii ka mida rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh ayaa waxaan raacay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh annagiioo marayna bannaan ayaa kuul aan leeyahay baa iga go'day waan waayey dadkii baan xabisay bay tidhi joojiyey doondoonkeedii baa la galay meel biyalana maanaan joogin biyana maanaan sidan dadkii markay ku mashquuleen dadkii waxay ogaadeen inaanay biyahayn abubakar bay u yimaadeen waxay abubakarow miyaanad arkayn oonad u jeedin caaisha waxay samaysay dadkii bay xabistay meeshu biyo male biyana ma haysano abubakar intuu dhaqaaqay ayuu caaisha u tegey wuu canaantay uu la diriray ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan buu soo dejiyey tayamumka amba gebagabaysiga bannaynaysa waxaa leeyahy muslimin mu'min haddii aad weydaan biyo gebagabaysi baa idiin bannaan markaasaa waxaa la kiciyey awrkeedii halkii awrka uu ku fadhiyey unbaa laga helay markaasaa usayd ibnu xudayr wuxuu yidhi aybakarow ma aha tani barakadiinnii koowaad ee in fara badan ayaan barakadiinna ka faa'iidaysan jirnay ilaahina subxaanahu wa tacaala wax badan uu nagaga fudaydinayey ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu intaa tilmaamay qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahy alam tara miyaanad u jeedin oonad arkay nebi allow ila aladiina kuwii
uutuu la siiyey nasiiban qayb min alkitaabi kitaabka ka mida kuwii la siiyey qayb kitaabka ka mida towraad lagu soo dejiyey injiil lagu soo dejiyey yashtaruuna waxay iibsanayaan addalaalata baadida wayuriiduuna waxay rabaana an tadiluu inaad ka luntaan assabiila dowga jidka xaqa inaad ka baadiyowdaan ood iyagoo kala noqotaan ayay rabaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala wallaahu allahna aclamu isagaa u ogaansha badan biacdaa'ikum cadowgiinna kuwa idin necab ee idinla colka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa ogaansha badan ee yahuud ah ee xaqa ka lumay kana digtoonaada wakafaa waxaa ku filan wakafaa billaahi ilaah baa idinku deeqo idinku filan weliyan ilaaliye iyo nasiiran hiiliye iyo gargaaraba wakafaa billaah ilaah baa idinku filan oo idinku deeqa nasiiran ilaaliye buli rabbi subxaanahu wa tacaala rabbi markuu intaa tilmaamay waxau ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaddana ku tilmaamay nimankii ahlu kitaabka ahaa gaar ahaan yahuud habdhaqankii foosha xumaayay ku dhaqmi jireen oo ah ilaahay kutubtii u soo dejiyey iyo xaqii uu u iftiimiyey siday u gelgediyayaan rabbi wuxuu leeyahay min aladiina kuwii waxaa ka mida haaduu yahuudoobay yuxarifuuna kuwa rogrogaya taxriifinaya gediyaya alkelima kelmadaha can mawaadicihi meelihiisa ilaahay halkii uu xukum dhigay ee uu wax ku sharciyeeyey kuwa ka qalloocinaya ka mida min aladiina kuwii haaduu yahuudoobay waxaa ka mida yuxarifuuna kuwa qalqalloocinayoo taxriifinoo bedeli alkelima ereyada can mawaadicihi meelihiisa ka kaxaynaya wayaquuluuna waxay odhanayaan samicnaa maqallay nebi allow waxaad nagu waanisay eedna fartay waan maqallay wa casaynaa waanan diidnay waxaan samaynay amar diido waan diidnay wasmac maqal kayra musmacin alla kuma maqashiiye waa ducaa rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh ayay markaasi habaarayaan rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh way xamanayaan waxay leeyihin haddii uu nebi yahay oo uu xaqiyo ilaahay uu soo diray muxuu ilaahay noogu daawanayaa muu ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyoodo inaanu ku ciyaarin inaanu ku dheeldheelayno naan rumayn muu u sheego waraacinaa doqonkayagiyow saasay odhanayaan layan laabis weeye bialsinatihim carabadooda ay ku laabayaan ereyada deelqaafka iyo qallooca leh watacnan durid iyo ceebayn weeye fidiini diinta ay durayaan oy ceebaynayaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala wayaquuluuna waxay odhanayaan markay nebiga dhegaysanayaan samicnaa maqallay waxaadna tidhi iimaankaad noogu yeedhay waan maqallay laakiin wa casaynaa waanan diidnay wasmac maqal kayra musmacin alla kuma maqashiiye maqal waraacinaa doqonkayagiyo kelmaddan waraacinaa rucuuna doqoniimo iyo axmaqnimo weeye nebigay u qarinayaan hadalkay u hoosgelinayaan iyagiyo u eekaysiinayaa inay ka timid ilaalintii iyo wanaaggii markaasay leeyiin waraacinaa doqonow layan laabis weeye bialsinatihim carabyadooda ay ku laabayaan ereyada foosha xun watacnan duris weeye fidiini diinka ay durayaan oy ceebaynayaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala walow haddii annahum ayagu qaaluu ay yidhaahdaan samicnaa maqallay nebi maxamedow wixii aadna lahayd wa atacnaa taladaadiina waan yeelno waan qaadanay wasmac na dhegayso wandurnaa na soo eegoo na sug lakaana waxa uu ahaan lahaa khayran mid u khayr badan lahum ayaga intay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh ay ceebaynayaan ay doqonow leeyiin hadday yidhaahdaan qaaluu samicnaa maqallay wa atacnaa taladaadii yeelnay wasmac na dhegayso wandurnaa na dhowr oo na sug lakaana waxa uu ahaan lahaa ereyadaa macaani khayran lahum mid u khayr badan wa aqwama mid u toosnaan badan oo u qiimi badan bay ahaan layd buli rabbi subxaanahu wa tacaala walaakin duulka lacanahum ullah ilaahay baa naxariistiisa ka fogeeyoo nacdalay
بكفرهم قال لماذا أوجد سلا أوجدنا فلا يؤمنون مر مينيان حقا إلا قليلا إن يرموا يمر مينيان حقا مر مينيان إلا إيمانا قليلا إيمان ير بين رمينيان برب سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحينوت المامي تدك يهودا عقل الدرادة انتا لاقي أي هيسو إلي شاقة كردكتين إن رسولك صلوات الله والسلام عليهم أي هذا الذي القافة أي أهوس كليان هذا الكودة يجي له هدو نبي هي محنو أجان واي إلهي سبحانه وتعالى وحوري وحقو خير بدنا لها إن النبي قال وانكم مقلي وانكم أدعني نمقل رسول الله نوكادي ونادور ساسا أقيم بدنا لي برب سبحانه وتعالى ولكن من أن إيمان لهين إلهي سبحانه وتعالى هنا أنفعه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.